xaflad qalinjabin arday ah oo si aadan loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday jaamacadda Utara Malaysia oo ku taala gobolka Kadax ee waqooyiga Malaysia. xafladdaasi ayaa sanadka kan waxaa kaga jirtay Soomaali 7 arday oo dhamaysatay kulliyadaha kala gedisan ee waxbarasho sida maaraynta dalxiiska, ganacsiga, dhaqaalaha iyo kulliyada kale. ayaga heerarka waxbarashada ay ahayd master degree iyo bachelor degree. guddiga ardayda Soomaaliyeed ayaa xaflad casho sharaf ah u sameeyay saaxiibadooda qalinjibiyay isla markaana kula dardaarmay inay sii wataan aqoontooda. qaar ka mid ah ardayda qalinjibisay iyo kuwa kale ayaa ka waramaya dareenkooda ku aadan waxbarashadooda isla markaana u hambalyeynaya asxaabtooda iyo weliba inta gacanta ka geysatay muddadii ay ku soo jireen heerarkooda waxbarasho. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Yaasir Maxamed Axmed. waxaan maanta aan runtii farxad la soo koobi karo meeshaan kula qaatay dhammaan familkayga, asxaabtayda, walaalahay, waalidiintay dhammaan. maanta oo aan ka qalajibiyey first degree koowaad oo ah maaraynta dalxiiska oo loo yaqaan tourism management. runtii farxad weyn ay tahay. waxaan sidoo kale aan u hambalyeynaya TV-ga caalamiga Universal TV. qalinjibintan aniga kaliya ma arday badan oo Soomaaliyeed ay jirto. dhammaan waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed, asxaabtayda, waalidiintayda, walaal meel kasta ay joogaan, hambalyo. dhalinyaradan waxaan leeyahay aan si laba jibaarna dadaalkeena. magacayga waa Axmed Abubakar Xasan Xamuud. waxaan ka qalinjibiyey jaamacadda University of Utara Malaysia kulliyadda finance. waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa familygeyga, qaraawadayda, ehelkeyga iyo saaxiibadeyda. anigoo ah Falxad Maxamed Sheekh Xasan waxaan halkan ugu hambalyeynayaa walaalihii oo qalinjibiyay maanta. waxaan leeyahay weligiina guul ku waara. xadeeda kale haddaan u soo noqdo waan idin mahadcelinayaa, ma aqaan waxaa ku cabiro, laakiin waxaan idin rajaynayaa adinkana dhammaantiin wax inka farxiyo oo inkala qayb qaato inuu ilaahay inkugu magac daro. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Naciime Cabdulaahi Guure. waxaan ka mid ahaa ardayda dhigata masterka UUM. programkaan diyaarinayo waxaa waaye master science management. I hope inaan dhammayn doono insha Allah next semester. hal subject kaliya ay hartay. future-kan waxaan jecelahay haddii ilaahay idmo inaan waxaan bartay dalkayga iyo dadkaygaan ku anfac haddii ilaahay yiraahdo. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo ah magacayga Ikraam Sheekh Abubakar Macalin Rashiid oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda University Utara Malaysia. waxaan halkan ooga hambalyeynayaa walaaleena aad qaaliga noogu ah oo maanta graduate-ka u tahay. waxaan leeyahay hambalyo, congratulation. waxaan wax ka bartaa faculty-ga COB-ga business. waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inaan noqdo inaan wax barashadeeda insha Allah aan ka sii meel gaaro. assalaamu calaykum. شو جامع عبدي وحكى برت جامعة يونيفرسيتي أوتارا ماليزيا. وحاعد فرحسنا أنا كسوق قبل حفلة قلنشمنتي أرض سنة كان مادة عندك كبرت مادة بنكين. هذا فرحسنا مادة مستقبل كحرجنا إن شاء الله أنا نقضي مانجر أوف بنكين إن شاء الله. بركاته مقعي وحالي هذا حسن محمد حيري. waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda University of Utara Malaysia maadada la yiraahdo Information Technology, gaar ahaan majoringkii waxa waaye Software Engineering wax la yiraahdo ama ma taqaanaa programmada kombiyuutarada sida loo sameeyo iyo waxyaabahaas. sanadkii ugu dambeeyay ahaa marka trainingkaas aan ku jiraa. waxaan rabaa in halkaan hambalyo ugu jeediyo ardaydii caawa meeshan ku qalin jibisay oo runtii ahaa rag waqti badan aan isla soo qaadanay. waxaan rabaa inaan ma taqaanaa ayagana ugu tahniyadeeyo farxadooda iyo horumarka ay gaareen anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ardayda jaamacadda. waxaan leeyahay guul wanaagsan ayaa gaarteen. horey u sii socda wax badanna sii horumara. khayr badan ayaan rajaynayaa. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. muuqaalka kan ay iga dambeeya daawanaysaan waa qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda UUM ee ku taala waqooyiga Malaysia. laakiin sanadka kan gudihiisa ayaa waxa ka qalin jabinaya jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dadka Malaysia ku dhawaad arday gaaraysa 28 arday. sanadiina dhaaftay 2009 ayay ahayd markii qarax lala beegsaday bishii December qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabinaysay jaamacadda Banaadir. laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay ardayda tan maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda UUM ee ku taala dalka Malaysia ma u laaban doonaan dalka gudihiisa si ay ugu shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed? jawaabta su'aashaasi waxaan u deyn doonaa qaar ka mid ah ardayda oo wax ku baratay dalka dibadiisa. Saciid Umar, Universal TV, waqooyiga Malaysia.